dad kamid ah dadka Hindida ayaa waxay caabudaan gabar waalan. haddii aad Hindiya maqasho waxaad diyaar u ahaataa wax kastoo kaa yaabiya. Haddaba 2023 waddanka Hindiya wuxuu noqday waddanka ugu dadka badan caalamka isagoo dadkiisu noqdeen 1.73 billion. Well, this month, according to the United Nations, India surpassed China as the most populous country on the planet. India is now home to more than 1.4 billion people and growing. India is expected to hold this title for the rest of this century. haddaba Hindiya markan ka eegno dhanka diimaha ayaa waxa ka jira 5 diimood. diinta Hinduuska oo ah 97.8 iyo diinta Islaamka oo ah 14.2 iyo diinta Kiristaanka oo ah 2.3 diinta Buddhiska oo ah 0.7 oo ah 1.7 inta soo hadhayna waxa noqonaysa diimaha kale. haddaba Hinduuska oo kaliya waxay caabudaan 300 oo milyan. It is said that there are 330 million Hindu gods for various occasions and various purposes. For example, Lord Ganesha for removing hurdles, Goddess Lakshmi for wealth, Goddess Saraswati for education, and there are a trilogy of gods or supreme gods: Brahma the creator, Vishnu the preserver, Shiva the destroyer. 330 million Hindu gods may sound ridiculous. oo ilaahay midba sidii jecel yihiin u sameeyaan. qaarkood waxay u ekeysiyaan daanyeer, qaarkoodna waxay u ekeysiyaan shabeel. mid walba siduu jecel yahay ayuu u ekeys. gacantooda ayaanay ku sameeyaan waxyaalaha la yaab kale. haddaba aad Hindiya ku arkaysa waxa kamid ah dadka Hindida ayaa waxay caabudaan gabar waalan. gabadhan ayaa caqli ahaan qof waalan ah 100%. sidaa iyadoo xaaladda ku jirta oo qof waalan oo maryaheedu uskag leeyay haddana dad baa caabudaya. haddaba gabadhan waalan ayaa waxa la yiraahdaa magaceeda Tobi Amma. dadka qaarkoodna waxay ugu yeedhaan Hat Mother. haddaba gabadhan la yiraahdo Tobi Amma ayaa waxay ku jirtaa xaalad psychiatric condition oo xaalad waali ah. haddana sidaa iyadoo ku jirta xaaladda dad badan oo Hindiya ayaa caabuda iyagoo daba soconaya qaarkood u sujuudaya. haddaba gabadhan waalan ayaa waxay daba soconayaan maanta oo dhan wadooyinka iyadoo ilaa qof xagga maskaxda ka waalan kolba guri bay hor istaagaysaa way daba istaagayaan haddana way ka dhaqaaqaysaa guri kale istaagaysaa way daba istaagayaan. candhuufta iyo duufka toona iskama maydho oo qof Ilaahay waala iyadoo la yaab ma laha laakiin sidaas ay ku daba socdaan oo ay u sujuudayaan. Ilaahay baa ku mahadlay nimcada islaamnimada.